xasan sheekh maxamuud culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya oo xalay kulan gaar ah la yeeshay odayaasha dhaqanka beesha Abgaal ayaa u gudbiyay dacwad ka dhan ah General Odawa Yuusuf Raage taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa ku dooday in generaalku abaabulay ciidamo isaga ka dhan ah oo macawisley beeshiisa ah isla markaana uu gaarsiiyay tiro dhowr kun ah isaga oo hubeeyay waxaana sidoo kale uu ka dacwaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud in generaalku uu dhaqdhaqaaqiyo amni oo isaga lid ku ah iyo abaabul ciidan ka sameeyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xasan sheekh maxamuud culusow hogaamiyaha sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay General Odawa Yuusuf Raage in dhawaan uu tagay hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed wuxuuna sidoo kale sheegay si gaar ah inuu u booqday markii uu mirinaayo saldhigga ka dhigtay oo banaanbaxyada abaabulayay isagoo sheegay in ciidamo uu u keenay xasan sheekh maxamuud culusow hogaamiyaha sharci darrada ah ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay generaalka in dhowr jeer uu tagay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku sheegay tilaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee uu sameynaya in ay u muuqdaan inay yihiin kuwa isaga lagu beegsanayo isla markaana si toos ah loogu dhibaataynayo sidaas awgeedna xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuusan aqbali doonin tilaabooyinka noocaas ah ee uu qaadayo ninkan lagu magacaabo General Odawa Yuusuf Raage madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee sharci darrada ku fadhiya villa Soomaaliya ayaa si toos ah waxa uu uga dalbaday odayaasha dhaqanka beesha Abgaal inay la fariistaan generaalka isla markaana ku qanciyaan wax walba oo u baahan yahay in dhankiisa uu ka helayo sidaas awgeedna uu joojiyo abaabulka dhaqdhaqaaq ee isaga ka dhanka ah oo ka sameynaya magaalada Muqdisho sidoo kale qaar ka mid ah macawisleyda isaga ku haybta ah ee ay jifo hoose isla yihiin isla markaana ciise harti ay isla wadaagaan oo ku fidsan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayuu dalbaday in la soo xareeyo lana qarameeyo tababarna loo furayo hub iyo saanad ciidan la siinayo odayaasha ayaa dhankooda waxay si toos ah u sheegeen in generaalku uu yahay nin dhalinyaro ah oo ciidamo haysta isla markaana deegaankiisii jooga cidda uu la kulmayana uu xaq u leeyahay oo ay ku fiican tahay in loo daayo iyaguna aysan hadda dhibaato ku arkin balse xasan sheekh maxamuud oo hadalka ku booday ayaa sheegay inuu cabsi weyn ka qaba dhaqdhaqaaqiisa isla markaana uu naftiisa iyo xukunkiisa uga baqayo waxa uu sheegay sidaas awgeed inuu aaminsan yahay in wax walba oo dhankiisa looga baahan yahay miiska uu soo saaro laguna qanciyo General Odawa Yuusuf Raage inuusan aadin dhinaca mucaaradka taas ayaa waxay muujinaysaa qalqalka amni ee uu dareemaya xasan sheekh maxamuud culusow oo dareensan in sharci darrada uu ku fadhiyo villa Soomaaliya isla markaana waqti dhow loogu soo daadanayo magaalada Muqdisho si weyn ayaa looga dareemayaa qalqalka amni ee xasan sheekh uu abuurayo ciidankiisa ayaa u daatay xaafado ku yaala degmada Daynile markii dambena waxay u daateen xaafadaha kulaala madaxtooyada ee aaggeeda ku yaala waxa sidoo kale magaalada Muqdisho maanta ka dhacay banaanbaxyo waaweyn markii ugu horeysay ayaa la arkay ciidamo ka soo horjeeda xasan sheekh maxamuud oo wata hubka noocyadiisa kala duwan iyo tuutaha ciidanka militariga kuwaas oo ilaalinaya shacabka banaanbaxaya waxayna taas keentay in maleeshiyaadkii macallin mahdi ee xasan sheekh u shaqeynayay banaanbaxyaasha hubka u adeegsanaya isla markaana qayb xirayay ay ku dhiiran waayaan tani waxay muujinaysaa in qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay faraha gacanta xasan sheekh maxamuud ka baxayaan isla markaana hadda lagu arkayo ciidamo aad u tiro badan xasan sheekh si arrintan uga hortago odayaasha maruusada ayuu kala hadlay in Daynile ay ka joojiyaan dhaqdhaqaaqa iyo banaanbaxyada isaga ka dhanka ah balse dhankooda waxay ku doodeen in cagaftiisu ay tahay cidda kicisi dadka isla markaana hubka u dhiibtay waxayna tani mar kale muujinaysaa xasan sheekh maxamuud inuu garay maalmo jahwareer siyaasadeed ah isla markaana waayihiisii xukunku ay gabagaba yihiin